Halkani waa Gaacir Media. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube. Waxaana ku soo qaadan doonaa xiriirka ka dhexeeya cudurka sokorta iyo COVID-19. Warbixintan iyo warbixino kale si aad u heshaan, fadlan subscribe noo saaro Gaacir Media Tube. Labadii sano ee la soo dhaafay adduunka waxaa ka dilaacay cudurka koronaha oo noocyo badan leh, taasoo keentay marxalado aan horey loo arag oo ay ka mid tahay in wadamada uu ka dilaacay iyo kuwa uusan gaarin cudurkani si isku mid ah in ay u xiraan albaabada wadamadooda muddo dheer. Sidoo kale labadii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u soo kordhay cudurka sokorta. Haddaba, waa maxay xiriirka ka dhexeeya cudurka sokorta iyo COVID-19? Xiriirka ka dhexeeya cudurka sokorta iyo COVID-19 si loo ogaado, saynisyahanada iyo khubarada caafimaadka ayaa baaritaano ku wada ilaa iyo hadda. Waaxda ka hortagga cudurrada Mareykanka CDC warbixinteeda baaritaan ee ay sameysay Maarch 2020 ilaa iyo Juun 2021 ayaa sheegaysa caruurta korona uu ku dhacay in laga helay cudurka sokorta. Laakiin Dr. Rasa Kazlakost oo ka tirsan jaamacadda Rush waaxdeeda daaweynta ayaa iyadoo u waramaysay TV-ga caalamiga ee WION ayaa sheegtay in aan la oran karin qof walba oo COVID-19 uu ku dhacay cudurka sokortana uu ku dhici karaa. Sidoo kale ayay tiri Dr. Rasa, qofka asagoo COVID-19 qaba haddii laga arko calaamadaha cudurka sokorta kama dhigno inuu qofkaas cudurka sokorta qabo, ama ma la dhihi karo qofkaas cudurka sokorta ayaa si joogto ah ugu dhacday. Dr. Rasa oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri waxyeellada uu cudurka COVID-19 uu qofka u geysto, sida tabar darri badan oo uu keenayo, waxaa macquul ah qofka sokorta insulinta ee jirkiisu u baahnaa maadaama oo ay hoos u dhac ku imaanayso. Qofka asaga ah cudurka sokorta ayaa ku dhici kara ayaa la dhihi karaa weliba si joogto ah. Iyadoo sidaas tahay, haddana intii koronaha uu ka dilaacay caalamka, waxyaabo fara badan oo cilmi u baahan haddana inaga qarsoon oo aan weli la gaarin in ay jiraan ayaa macquul ah. Adduunka 540 milyan oo qof ayaa cudurka sokorta qaba, 37 milyan oo ka mid ah waxay ku nool yihiin dalka Mareykanka.